kulan wacan wanaagsan qaarta wada la xirta halkan barta YouTube kulana maraba nagala socotaan waxa ku soo qaadan doona xaaladii ugu dambeeyay dagaalka laga soo sheegay gudaha dalka Ethiopia iyo cabsida soo wajahda Abiy Ahmed ayaa soo qaadan doona Tigreegi oo markaan bilaabeen isfidiyaan ayaa soo gudbi doona waxa kale soo gudbi doona Eritrea Ethiopia xaaladooda aad u cakiran tahay dhanka ay Soomaaliya hadda tagnana xaaladda gobolka Gado aad u cakiran khilaafka Axmedoobe iyo wax soo qaadan doona Maxamuud Said Aadan maxaa ka dhaxdhacay ayadana waa soo falqeyn doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka cagijiidayo inuu la kulmo Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ayadana waa soo qaadan doona xaaladii ugu dambeeyay magaalada Balad Xaawo iyo Ilaahay Garbaharey hanjabaad ka soo yeertay taliyaha NIS ee Garbaharey ayadana soo qaadan doona iyo xaaladii ugu dambeeyay dhanka maamulka Waqooyi Bari Cadmadoobe ciidanka ugu tirada badnaa tababar u soo xiray ayaan soo qaadan doona duleedka Buuhoodle waxaan kala soo qaadan Soomaaliya naftigeeda oo ayadana hanjabaad soo dirtay ciidamo 6 ka badan sheegtay inay tababar u soo xirayso barnaamij Garay Malfa Garsiyo barnaamijka ugu soo saaxiibka Fargood oo rabaa inuu wax ka weydiiyo Fargood Tigreeg dhaqay badan ay bilaabeen dagaal ayana markaas qorsheeyeen waxaana la sheegayaa in gobolka Canfarta risaas ay ka dhacayso maxay marka Tigreeg doonayaan ma Canfarta rabo inay ku kala baxaan ma Abiy Ahmed ay ka sheegayeen inay weerar rabaan xagee wax ku socdaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay Suldaan Gooniyo waxaa jira in dhaqdhaqaaq xoogan ay sameynayaan ciidamada gaar ahaan kuwa militariga kay loo yaqaano muxuu ahaa TPLF-ta ama TDF-ta loo yaqaano kuwaas waxay sameynayaan haddii baa ku soo ogol yahay dhaqdhaqaaq bay sameynayaan dhaqdhaqaaqusana waxa weeyaan waa inay aad u soo galeen deegaanka Canfarta oo in dhawaalaba awood ay ku lahayd dowladda Ethiopia halkaasina waxay doonayaan in haddii uu dagaal bilaamo in ay gudaha u sii galaan gabi ahaanba dalkaasi Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo waliba kuwa ka agdhow waxay leeyihiin haddii aan dagaal qaadno waan israacinaynaa faanada iyo TPLF-ta iyo dalka Eritrea cagahan marinaynaa inkastoo dhanka kalena nabad ay kaga baaqahayaan waxaana la arkayay ciidamo cagafyo wata oo dalkaas Eritrea oo xadka ka qodanaya godad waaweyn bay ka qodanayaan xadka ay kala wadaagaan dalkaas Ethiopia Abiy iyo dowladdiisuna way u diyaar garowday marka dagaalkani kulay waxaad moodaa dagaal sanado badan ma garanaysaa diyaar garowgiisa uu socdo ama dhanka hubka ha noqdo ama istiraatiijiyada ha noqdo ama dhanka wardoonka ha noqdo oo qolada kale ay ma garanaysaa xidhiidho kala duwan ay la samaysanayeen marka dagaalkan hadduu mar bilowdo uu ka cuslaan doonaa kii 2 sano ka socday gabi ahaanba deegaanka Tigreega waana sida ay inta badan ku taxliilinayaan dadka muxalliliinta ama analysis garaya siyaasadda dalkaas Ethiopia waana ogaan doonaa Abiy iyo dowladdiisuna waxay leeyihiin way naga go'an tahay inaan gabi ahaanba aanu gaadhno badda waayo 70% dhanka diblomaasiyadda waana ku guuleysanay bay leeyihiin wadamada maxaan ku dhahaa Eritrea Djibouti iyo waliba dalka Soomaaliya hungureenayaan dhanka kale safiirka ku sugnaa magaalada Ankara ee dalkaasi maxaan ku dhahaa Turkiga waa safiirka Ethiopia ayaa wuxuu sheegay haddii wada hadallada ay fashilmaan in dib ay ugu noqon doonaan haddii baa ku soo ogol MOU-di ay maamulka Somaliland ay la saxiixdeen marka waxa weeyaan Ethiopia xaqiiqatan waxay gamcayn ku haysaa wadamada dariska la ayay gamcayn xoogan ku haysaa waana barnaamij kulay siyaasadeed oo ay degsadeen waxa kale oo iyadana la arkayo Gooniyo oo arinta dadka Soomaaliyeed aad u hadalhayaan waxaa laga dhisay magaalada Addis Ababa taalo weyn oo qaaradda Afrika ah ayaa laga dhisay magaalada Addis Ababa taaladaasi waxay calaamadeeyeen oo calaamado u sameeyeen haddii baa ku soo ogol yahay wadamada qaaradda Afrika ay qolo walba calaamadeeyeen waxayna ku soo dareen Somaliland oo ka dhigan dal gooni ah waana taalo weyn oo ka dhex taagan magaalada Addis Ababa caasimada dalkaas Ethiopia marka taaladii ay dhiseen ee qaaradda Afrika khariirad ahaana oo ayay khariiradii qaaradda Afrika oo taala ay dhiseen weyn oo de ma garanaysaa de dabaqba leeg marka taaladaasi ay sameeyeen waxay ku soo dareen oo kala gooyeen dalka Soomaaliya Somaliland dal gaar ay ka dhigeen Soomaaliya inteeda kalena dal gaar ayay ka dhigeen marka Etoobiyaanku waligood Allahood ma deynayaan munaafaqada ay ku hayaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ama wadamada dariska guud ahaanba farqadu waa maasan tahay Somaliland iyo doodeedu waa taagan tahay aqoonsigeedana muran ay galay dowladaha China iyo markaasi Turkiga iyo Soomaaliya ayaa dacwad ka geeyay dalka Mareykanka ayay gaarsiiyeen dacwadaasi Mareykankana hadda inuu aqoonsado kuma dhiiran karo sida warbaahintu ay sheegayso haddaan aadno dhanka iyo Soomaaliya gudaheeda waxaa leeyahay Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la rabay in lagu kulansiyo magaalada Nairobi madaxweynaha Soomaaliya uu diiday oo wuxuu yiraahday Axmedoobe inta uu madaxweyne isku aaminsan yahay 5 sano ku jiito lama kulmi doono shuruudo fara badan la soo hordhigay marka maxay kula tahay arintaasi inay fashil ku dhowdahay والله أنا حكت الإسية فشل كمان دوا ولا سجيجيدي وضمن الدرس كاه إيو محن كل هاي أرجوبلات كيجاد إيو يقرن مدى المدوبي ولاش بين لبضر نعبس سهران سيد اللي إليه هاي خدشدون مال في عم بيمريسا أحمد حال الإسلام وحياه فربنا بكتنا الجلسي اللي إليه هاي
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisana wax badan bay ka tanaasuleen marka waxay aad ugu muuqataa baa laleeyahay inuu wada hadalkaasi uu midho dhalo oo guul weyn laga gaaro sida ay sheegayaan ila diblomaasiyadeed oo ku laakiin sugan qodobka magaalada la isku Nairobi. mari lahaa waa qodobka ugu muhiimsan oo axmedow inuu 5 sano ka tanaasulo uu diidaa la yiri qodobkaasna waa qodobka dowladda diidanta axmedow wuxuu ogolaaday in Ras Kamboni dagaalkii raaligelin ka bixiyo wuxuu ogolaaday in waxa la yiraahdaa oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah laakiin wuxuu diiday inuu ka tanaasulo 5 sano oo asoo ku jiitay waxa la isku hayay hadda oo loo kala taagan waa arrintaas bis ah inta kale la isku fahmo ها marka kulay sujuudku wuu socdaa laakiin aniga waxa la ileeyahay inta badan qodobadii is u dhaxeeyay dawladda iyo maamul goboleedka Jubbaland inta badan waa la isku fahmay waxayna u muuqataa baa la leeyahay maalmaha fooda nagu soo haya in gabi ahaan la shaaciyo in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland inay gabi ahaan ka heshiiyeen madmadowga u dhaxeeyay culays badan baana lagu saaraya maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalkaaba inay hal meel ay wada noqdaan oo hal koota ay wada noqdaan oo wada shaqeeyaan waa sida aniga la ileeyahay waana suuragal de qodobada qaarkood in la isku mari waayo waa suuragal laakiin waxa la tilmaamayaa in beesha caalamku iyo qoryahan kale ay ka go'an tahay sidii la isugu jeedi lahaa loona midayn lahaa labada dhinac axmedow hadda Siciidani oo saaxiibkiisa haduu ka tago maanta dawladda uu leeshiyo soo hadda uma noqonayso Siciidani asaga waxay kala qorteen oo ay noqdeen isku dheer inay noqdaan dawladda la isla hagaardaamay aan meel la isaga tagin soo hadda fashil ma noqonayso Siciidani hadana gooni u taagay ma noqonayso wallahi arrintu horta ma dhawa oo arrintu waxa weeyaan Saciid Cabdullaahi Dani budagaar u tuman buu noqon dhawaana waa arkayso oo dalka Puntland buu lahaa oo wuxuu ugu dan lahaa dawladda federaalka ugu dan lahaa marka Saciid Cabdullaahi Dani nin dhib yar maaha asaguna oo barbarkiisu iyo xurbiska ka wadaa marka waxay u muuqataa asagana in gaar loola heshiiyay ayay u muuqataa laakiin hal ogow halka meesha taala waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed isfaham bay horta u baahan tahay ha u baahnaatay qoladan maamulka Jubbaland iyo maamulka Puntland labaduba waxa ka go'an in doorashada say doonto ha noqotee in la dhaafiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo doorashada ma uu dib ugu soo noqonin xasanna waxa ka go'an inuu dib u soo noqdo at least markay ugu yartahay 2 sano inuu ku jiito arrintan marka ayaga laftigoodu Soomaalidu dad madax banaan ma aha arrintanna waxa ka shaqeynaya Imaaraadka ka shaqeynaya Imaaraadkuna lacag badan buu wuxuu ku bixinayaa labada maamul goboleed buu lacag ku bixinayaa iyo waliba dawladda federaalka xubno ka tirsan ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo ayuu ku bixinayaa marka dalka Soomaaliya kulay waa dalba oo yaa kule ummado fara badan baa hagardaamaynayso oo ma garanaysa hadii bay ku soo ogol yahay qorshaha ummadda Soomaaliya raba inay kala tuuraan meel walba oo loo dhaqaaqaba doonayay inay kala tuuraan laakiin nidaamka iyo systemka dawladnimo ee dalka Soomaaliya ka jira oo curdana ayaan awoodin ma garanaysa inuu maxaan ku dhahaayay waxyaabaha kale ee faragelinta tirada badan inuu maarta u babac dhigo waana arrin ma garanaysaa bil xaqiiq markii si loo fiiriyo aad u culus weeye marka waan ogaan doonaa bal waxay ku dambayso fargada waa macsan tahay maamulka waqooyi bari wuxuu soo bandhigay ciidamada aad u tiro badan cad madooba la arkayo ciidamada dhexmaray isla markaana tababar soo xiray deegaanka Jidbaale ee duleedka magaalada Buuhoodle waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay ka mid noqon doonaan ciidamada cusub ee la howlgelin doono Soomaaliland naftigeedu waxay sheegtay in maalmaha soo socdo ay soo bandhigin doonto ciidamo 6,000 ka badan oo ayagana tababar dhameystay marka xaalka maamulka waqooyi bari iyo Soomaaliland wali taag ayuu maraya waxaana la sheegay in maadaama 15 Agosto lagu jiro in dagaal laga baqayo oo markaasi 2 sano kadib Soomaaliland ciidamo ay ka xiran yihiin guul ay gaareen ma jirto oo maalintii laga soo saaray Gooja Cade ilaa iyo hadda 2 sano laga soo wareegay wax natiijo oo Soomaaliland u qabsado ma jirto marka xaalku aad u adag yahay ciidamada wala diyaarsanayaa in maanta weerar dhaco ama dagaal dhacana waa dhici kartaa oo la soo weeraro maadaama ciidamadaas faraha badan xuduudka lagu soo bandhigay marba marka dambeysana cabsi dagaal u jiro wuxuu ka soo koray halkan absuud badan barnaamij shirgaray meel fugarsi